dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay sare u qaadida dakhliga dalka kadib markii dagaal xoog leh ay ku qaaday musuqmaasuqa. Waxaa la ururiyay oo la beeqaamiyay canshuurtii dalka, taas oo loo weeciyay inay si toos ah ugu dhacdo bangiyada dowladda si loo helo kobco dhaqaale oo baaxad weyn. isbeddelka ku yimid dhaqaalaha dalka waxaa laga dheehan karaa ku talagalka miisaaniyadda sanadka 2020 ee ay dhowaan ansixiyeen golaha wasiirada, taas oo ahayd wadar ahaan 459 milyan oo dollar. waa miisaaniyaddii ugu baaxadda weyneyd ee Soomaaliya yeelato muddadii burburka, waxayna korortay ku dhowaad 50% marka loo eego miisaaniyadda sanadkii hore. waa wax aan caadi ahayn in dal adduunka ku yaala ay miisaaniyaddiisu kororto sanad gudihiis xaddi intaas leeg. Soomaaliya oo la daaladhacaysa sidii ay uga soo kaban lahayd dagaaladii sokeeyena waa mid aan si naba looga filayn. dhinaca kale, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowaan saxiixay sharciga maamulka dakhliga oo qayb ka ah dhammaystirka hannaanka maamul wanaagga iyo hufnaanta maaliyadeed ee dalka. saxiixidda sharcigaasi ayaa lagu tilmaamay inay ahayd tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo hannaanka dayn cafinta. madaxweynaha oo ka hadlayay munaasabadda saxiixa ayaa sheegay in sharcigani uu yahay mid la jaan qaadaya nidaamka casriga ah ee dakhli ururinta. sharcigani wuxuu ku saabsan yahay maamulka dakhliga, waana sharci la jaan qaadaya nidaamka casriga ah ee ururinta dakhliga. waxyaabaha uu ka hadlayo waxaa ugu muhiimsan bixinta canshuuraha iyo sidii loola macaamili lahaa canshuur bixiyaha. wuxuu kaloo caddeynayaa ama xaqiijinayaa xuquuqda canshuur qaadaha iyo canshuur bixiyaha iyo arrimaha la xiriira farsamooyinka lagu qaaday canshuuraha. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sharcigan inuu soo maray wada tashi buuxa oo ay ka qayb qaateen wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha maaliyadda ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. dowladda waxaa ka go'an kor u qaadista iyo kobcinta dakhliga dalka si loo fuliyo adeegyada bulshada ay dadku u baahan yihiin, ay ugu horeeyaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo dib dhiska dalka. waxaanu ku soconnaa waddadii dalkeenna uu deynta looga cafin lahaa. lacagta bangiyada u taal banaankana qaaru jiro haddii basar loogu huro iyagoo kala baqay wax soo saar loo bandhigo warshada badan ay dhisaan barbaar hawsha u jajaban dhulima baadho taqaan daryaka barku gacan qabta dhaqaaluu beri horu oga buuxsaminaayo kamaan way subahayn iyagoo kala baqay wax soo saar loo bandhigo warshada badan ay dhisaan. tani waxa ay markhaati cad u tahay sida dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo dadaalka badan ugu bixisay hannaanka maaliyadeed ee dalka iyo sida dhaqaalaha soo xirooda u noqon lahaa mid ku dhaca gacanta dowladda oo dib loogu celinayo kadibna dadka. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo dibdhiskiisu dowladda u yahay muhiimadda koowaad ayaa loo kordhiyay mushaharkii 100%, iyadoo askarigii mushahar ahaan u qaadan doono $200. waana guul iyo horumar aad u weyn oo dalka u soo hoyatay. waa maalin weyn, marka waxaan u mahad celinayaa horta wasaaradda maaliyadda oo soo dhammaystirtay miisaaniyaddii 2020 kuna soo dhammaystirtay waqtigii loogu talagalay. waxaa kaloo u mahad celinayaa golaha wasiirada iyo wasaarad walba oo kala shaqeeyay inay u suurto geliyaan wasaaradda maaliyadda inay soo dhammaystirto miisaaniyadda. waa bilow fiican, laakiin waxay naga astaahilaan naguna leeyihiin intaas ka badan. muddo dheer dowladihii soo maray Soomaaliya waxaa lagu dhaliili jiray inaysan ciidanka siinin mushaharo iyo saad ku filan, balse dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo waxay u qoondaysay ciidanka mushahar, saanad iyo sahay ku filan, taas oo u saamixi doonta inay ka adkaadaan argagixisada iyo inay ugu dambeynta sugaan jiritaanka iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. shaki kuma jiro inay Soomaaliya horey u socotay walow caqabaduhu badan yihiin, haddana waxaa looga gudbi karaa iskaashi shacab iyo mid dowladeed si loo gaaro guusha iyo halka dalkeennu uu mudan yahay.